barqad wacan daawadayaal ayaan ku bilaabnay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan oo si rasmi ah xilka ula wareegay qodobkaasina waxay noo faahfaahinay wariyahana Cabdinuur Usmaan Aadan Calays Cabdinuur Honesty gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan oo ay garab taagan yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada amni Soomaaliya kuwa xooga dalka odayaal dhaqameed iyo Ugaas Xasan Ugaas Khalifa ayaa maanta si rasmi ah xilka kala wareegay gudoomiyaha xilkaasi kaga horeeyay Cali Maxamed Caraale kadib dadaal dheer oo ay sameeyeen odayaal dhaqameed siyaasiyiin iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka ay kuwa amni Soom gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaana ugu horeyntii waxa uu ku dhawaaqay inuu si rasmi ah xilkii maanta ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti ku qanacsanahay wax kasto qabay xadgudub kasto dhacay dastuur kasto jabay iyo wixii la soo marayba inaan ka soconno oo wixii dhacay iska ilowno oo aan u gudubno wixii hadda maanta la qaban karo iyo inaan xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub walaalkii Cali Jeeti waa aqbalay wixii maanta ka bilaabana asaan xilka ku wareejin doona hadii la yiraahdo ama aan ku wareejiyay wixii dokumenti ahna insha Allah gadaal ayaan maxaan ku raahdaa aan ka wareejin doona marka waxaan rajeynaa hadda wixii ka dambeeya shaqadii socotay iyo mashaariicii socday iyo horumarkii socday gudoomiyaha cusub walaalkan Cali Jeeti inuu meesha uu ka sii wadi doono ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa wax u mahadceliyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale sida wanaagsan oo maanta xilka ugu wareejiyay iyo sidoo kale waxa uu mahadceliyay saraakiisha ciidamada xooga kuwa amni Soom iyo odayaal dhaqameed iyo sidoo kale Ugaas Xasan Ugaas Khalifa walaalkii waxaan leeyahay waa mahadsan yahay sida maxaan ku raacay ixtiraam kale oo igu wareejiyay xilkana waa uga mahadcelinayaa aniguna waxaan ahay oday laga dhima jiray aan ahayo siyaasadda qarar badan waa ka soo dhacay xil gobol iguma horreyn aniga xil ilaa minister aan soo ahaa ilaa MP aan soo ahaa ka horna waxbaan soo ahay haddana haddii la leeyahay waxaa la noqon doonaa walaalkay inaan iskaashi ka yeelano siyaasaddana waa u ballan qaadayaa haddii alla idmo waa u ballan qaadayaa waa soo dhawaynayaa siduu intuu ii quuro in lamid ahaan u quuri doonaa haddii alla idmo adinkuna waa mahadsantihiin cid kasta oo waqti gelisay arrinkaanna waa uga mahadcelinaya cid kasta oo waqti gelisay haba yaraado ama ha badnaadee anoon iloobi doonin walaalaheen ciidamada qalabka sida ama amisom sida ay isugu dhabar jibiyeen arrinkaas iyo ugaaska iyo odayaasha iyo oqaasha kale intaba waa ka mahadcelinaynaa insha Allah wixii hadda ka bacdayna hadal daba soo gaari doono aad iyo aad u mahadsantihiin